السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن محمد علي كهول جلس بتالك ولا ليال وحن دونه هنا نيلو ذاقو فرين رنتي مهم أدان واركو فرين تاسين وحويان قران ما ينلقوا ور هايو isbitaalada Yurub ku yaalay laga soo bilaabo Ingiriiska ilaa Sweden bal ilaa America tag isbitaaladii wax weeyaan waa ay circirayaan oo dadkii cudurkii COVID-19 ku dhacay ayaa soo buux dhaafsiiyay runtii dhaqaatiirtu waa ay yaaban yihiin dhafoorada ayaa la wada haystaa waxaa la oranayaa arrinkani waxaan abid ama weligeen hore ugu aragnay ma aha waxaa la kala garan lahayaa ayaanu badbaadinaa ma hebel baanu badbaadinaa mise bilaayaanu badbaadinaa waayo boosaskii iyo sariirihii isbitaalada yaaleen waxa weeyaan waa sariiro xadidan oo dadka dhan boosas looma wada hayo bal intaa waxaa ka daran runtii ugu kalifay klibkan inaan soo duubo waxa weeyaan Soomaalida oo runtii nasiib xumo ka noqotay dadkii bukaanka ahaa iyo dadkii cudurkan u geeriyoonayay Soomaalida runtii lambar 1 ama safka hore ka gashay arrinkan marka walaalayaal de arrinkaasi arrin nooc cunto ma tahay Soomaalidii maxaan ku raahdaa Yurub ha ku noolaato meel walba in maanta de cudurkii uu si aan caadi ahayn ugu dhacayo una dhimanayaan waan ogahay wax walba waa qadar rabbi raalina waan ku nahay laakiin se in dadaal la'aanteena iyo isdigashadeena maanta ayna gaarsiisay heer ay dadkeena ay si fudud ku baaba'ayaan de arrinkaasi malaha arrin qabata ma aha arrin haboon ma aha marka loo barbar dhigo bulshooyinka kale ama dadkii kale ajaanibta kale loo barbar dhigo marka loo barbar dhigo dadkii dhaladka ahaa de Soomaalida ayaa maanta lambar 1 ka galaysa ama saf hore ka gashay xag dhimasho iyo xag xanuunba marka walaalayaal fariintan doonay inaan diro wax weeyaan cudurkani daawo ma laha daawadiisa waxa weeyaan waa ka hortag sida aawadeed walaalayaal ka hortagii hala soo celiyo waa muhiim waa daruuri ka hortagii hala soo celiyo yaan meelaha lagu wada kulmin yaan maqaaxiyaashii meelaha lagu wada kulmin booqashadii hala yareeyo maxaan ku raahdaa xafladihii hala yareeyo de dhinacii nadaafadii gacmihii la iska nadiifinayay iyo maxaan ku raahdaa maaskihii af xirashadii la xiranayay de wuxuuba hala soo maxaan ku raahdaa hala soo celiyo waayo haddii kale un dhibkan baa taagan oo de isbitaalada baa la wada galay hadhowna de maxaan ku raahdaa waxaaba dhici karta in loo dhinto de naftu bini'aadamkana waxa weeyaan mas'uuliyad baa ka saaran naftan Ilaahay ku siiyay waxa weeye mas'uuliyad baa ka saaran oo de nafti inaad badbaadisid mas'uuliyad baa ka saaran ummadda kalena inaad badbaadisid mas'uuliyad ayaa ka saaran marka walaalayaal taxadarkii hala soo celiyo de haddana waxaad ka warhaysaan weli waxaan ku jirnaa marxaladii ama de bilihii qabowii baaba hadda inoo bilowday oo arinku waxa weeyaan 1 iyo 2 runtii ma joogo de waxaa la filayaa bilahan soo socdan runtii inuu ka sii daro bal intaa waxaa dheer coronaviruskii inuu hadda isbedelay bariyahan waa wada maqlaysin mutation inuu dhacay coronaviruska waa uu isbedelay nooc cusub ayaa soo baxo noocii Ingiriiska la dhahayo noocii South Africaanka kuwaasina waxay kaga duwan yihiin coronaviruska aanu garanayn waxay kaga duwan yihiin waxa weeyaan waa kuwa yani waa uu maxaan ku raahdaa 70% ayuu ka awood badan yahay kan hadda jiro oo runtii aad waa nooc aad u fido marka taasi macnaheedu waxa weeyaan maadaama aad u fidayo dad badan baa maxaan ku raahdaa ayuu gaari doonaa dad badan ayaa isbitaalada soo gali doona dad badan ayaa haddana u dhiman doona marka arrinkaas arrin sahlan ma aha marka walaalayaal naftani waxa weeyaan ammaanaynu ugu tahay dadka kale aan la noolanahay insha Allah mas'uuliyad baa naga saaran marka walaalayaal hala dadaalo hala taxadaro way cudurkani daawo ma laha waa la socotaan bariyahan waxa weeyaan talaalka ayaa bilowday de talaalkana waxa weeyaan ka caafimaad ahaan ama de isbitaalada iyo hay'adaha caafimaadka dhan waxay ku talinayaan in talaalka la qaato marka cidii fursad u hesho talaalkana de talaalka ha qaadato waayo dhibka talaalka uu qofka ka soo gaara ama marka loo barbar dhigo dhibka maxaa la yiraahdaa coronavirus cudurka hadduu qofku ku dhaco ama uu de qofkii talaalka qaato waxaa sahlan qofkii talaalkii inuu qaato oo de dhib badan kama soo gaarayo bidinillah marka taana waa de taladaas ay runtii hay'adaha caafimaadka bixinayaan in talaalka la qaato marka walaalayaal taxadarka hala soo celiyo fariin yaro gooni ahna waxaan ama fariin yaro khaas ahna waxaan u dirayaa dhalinyarteena u dirayaa dhalinyaro waxa weeyaan la socda hadda markii runtii la sii dabagalay waalidiin badan ama dad badan oo maxaan ku raahdaa inaga geeriyooday oo dad waaweyn ahaa dumar iyo ragba waxaa runtii soo ifbaxaysa in dhalinyartii ama ubadkoodii ay runtii cudurradii u wada geeyeen ayaa soo ifbaxayso marka dhinacaasna bal dhalinyaray arrinka ha laga warhayo runtii waalidiintiina maanta sawaha u noqonayna inay de maxaan ku raahdaa cudur aan guryaha ugu keenteen inay u dhintaan
marka guud ahaan fariintan doonaya inaan diro waxa weeyaan coronaviruskii marxaladihii u adkaa ayaa la marayaa, cudurkii waa uu sii fidayaa. war qof walbo guriyahaaga isku xir, qof walbo guriyahaaga isku xiro, maxaan ku rahdaa dadaalkaaga iyo taxadarkaaga qaado, booqashada hala yareeyo, hala kala fogaado, maaskii hala xirto. marka insha Allah bal ilaahayna ha naga dulqaado corona cudurkani. marka walaalayaal fariintaas ayaan doonayaa aad ha loo dadaalo. waana nasiib xumo runtii Soomaalida inaan maanta number 1 ka noqono dhinacii xanuunka iyo dhinacii dhimashadaba meel walba aanu joogno marka loo dhigo tira ahaan dadku intaanu ka nahay. marka aad baan idin salaamayaa insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.